Bismillahirrahmanirrahim. Soo dhawaada saaxiibayaal meel kastoo joogtaan. Muuqaalkan maanta waxaan rabaa inaan kusoo gudbiyo tool la xiriiro muuqaalkeenii u dambeeyay ee ku saabsanaa web application pen testing. Gaar ahaan waxaan sameynay brute forcing anagoo isticmaalnay tool la dhaho FAF oo nu isticmaalnay login brute forcing. Maanta waxaan rabnaa inaan ka hadalno toolkan loo yaqaano Phoenix Buster waa tool loo isticmaalo content discovery. Wuxuu aad caan ugu yahay directory enumeration ama directory brute forcing. Waa fast, waa simple, sidoo kaleetana waa recursive oo ah si xawli ah inuu u shaqeeyo oo uu content ku soo saaro like contentiga, yani wax walba oo sensitive information oo website uu leeyahay inuu kaaga soo saaro. Si aad ugu shubato waxaa kaliya u baahan tahay inaad dhahdid sudo apt install Phoenix Buster in a terminal. Bal aan fiirino toolka markaa gudihiisa gashid haddaad dhahdid Phoenix Buster --help haddaad dhahdid waxaa arki doontaa wax walba oo flags ama options a isticmaali kartid. Okay, si aan toolka u isticmaalno waxaan ku practice gareyneynaa laabkeenan maanta website-kan loo yaqaano Hack This Site. waa website loo isticmaalo sidoo kale training iyo penetration testing. waa real website waaye. Therefore bal isagaan ku tijaabineynaa hadda. waxaan leenahay sudo, waxaan leenahay Phoenix Buster, waxaan leenahay url kan soo koobiyeno control C. okay, halkaan imaw control shift V. kadibna waxaan isticmaalaynaa word listigeena caanka ahaa ay ku jiray user share word lists directory brute. okay, checklists aan isticmaalaynaa checklists directory web content raft. waxaan ka isticmaalaynaa medium directory.txt. then waxaan leenahay waxaad ku sameysaa status code. waxaa kaliya doorataa okay, permanent redirection iyo temporary directing iyo sidoo kale 403 haddii aan ka heleyno. okay, coma iloway, sorry, 403. sidoo kale waxaan leenahay depth. waxaa aadaa ilaa iyo 5 folder oo kaleeto gudaha usii aad. sidoo kale waxaan leenahay extension. waxaa raadisaa like waxaan leenahay waxaa raadisaa JSON oo kale. waxaa raadisaa ASP.NET oo kale. ASP waxaa isticmaala governmentiska. sidoo kale ASP waxaa isticmaashaa sidoo kale waxaa noo raadisaa haddii la helayo JSON like APIs haddii laga heli karo. waxaa raadisaa sidoo kale old files haddii jiraan HTML login haddii la helayo kale. sidoo kale waxaa raadisaa env. waxaa raadisaa like backup. intaan waan ugu filan tahay haddii txt ama ku darnaa. let's intaan la anfirin for the sake of this example like waxaa naga dhimana on jeclahay redirection. okay, haddii lacala uu meel kale website ku celiyo redirect ku sameeyo. sidoo kale thread waxaa dooranaa like 90 ama 80 iska dheh 80 by default content waa thread wuxuu sameynaa xawli inuu u baaro oo awood uu siiyo baaritaankiisa. intaan aan ku daysano no save garay. waxaa dhehaysaa website-ka magaciisa hack this site. hack aan ku save garaysaneynaa hack.txt. sidoo kaleetana verbose inaan aragno waxa dhacay. passwordkeena rootkan oo geli kadibna wuxuu bilaabayaa baaritaankiisa. si uu u shaqeeyo si xawli ah waxaa fiican inaad resource-kaaga aad kordhisid like wax badan aad gelisid. okay, muuqaalkeena maanta halkaan ayuu ku egyahay. wuxuu bilaabay inuu soo helo waxyaabihii directory-yadii iyo wixii kale ku jiray. haddii aad daneynaysid tool gaar ah oo muuqaalka soo sameynayo fadlan qaybta commentiga igu soo reeb. waa mahadsantahay. intaan muuqaalka xigo ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.